السلام عليكم سو هذا aad baa idin salaamaya aad baa idin ka qaaday manaxaji soo dhawaada walaale sidaan idin sheegayba waxaan idhi life aan soo geli doonaa mar dhow hadduu allahu yidhaahdo waan idin sheegaya insha allah wixii waree cusub ee aan idin ku dhacmo waan idin sheegaya kolley anigaba magaalada waddanka waa ka maqanahay waad ogtihiin laakiin xaaladda magaalada jigjigan insha allah iska horeysan doonaa iyo maanta meesha ay mareyso soo dhawaada miyaan yar sugaa misena waa idin bilaabaa horta codkayga ma la maqlaa si fiican ma loo maqlaa marka hore wax badan oo cusub ma jira wixii jiray unbaa un weli socda codkayga ma la maqlaa horta ma maqashaan codkayga haddii codkayga aada maqashaan hay soo qora waa kaa qaaday waddani adeer qadar hudow waan isku dayi doonaa insha allah Hola, abo dadka ma la hadlaysaa Laisha. ya Up to you, okay? Up to you. abo ma la hadlaysaa dadka ma salaamaysaa You can make your demo. may maqashaan codkayga si fiican ma lai maqlaa horta haddaad i maqashaan waa jeclaan lahaa inaad iisi jawaab celisaan kanabo Yep. Finger first. aad baan idinka qaadayaa dhammaantiin soo dhawaada wax balaaya iyo wax dhibaataa midna ma jirto soo dhawaada waan iska bilaabanaynaa wax yar kolley inkastoo ciddii ay dhaaftan hadhow way kusoo ceshan waxaan usoo galay uun inaan idinla wadaago wax yar oo magaalada xaaladda deegaanka iyo maanta meesha ay mareyso magaalada jigjiga gaar ahaan deegaanka o dhan ma wadaha waxaana jeclaan lahaa oon idinka codsanayaa dhammaanteen soomaali baynu wadanahay meeshan aynu samaan ka wada talino kolley qof xun oo mid xun la waayi mahayo marka waxaan jeclaan lahaa in samaan laga taliyo oo wanaag un aan ku wada hadallo keliya feer qaloocan laynaga waayo maayo xaaraan bay ka tahay haddaad i maqlaysaan aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu salaanta muslimka idin salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo aada joogtaan waan idin salaamayaa soo dhawaada qalbi furan kusoo dhawaada liveka uma soo gelin inaan anigu inaan waqti ku lumiyo ama aan fan ahaan usoo galay ma aha waxaan doonayaa kaliya xaaladda magaalada jigjiga inaan idinla sheergareeyo iyo waxay maanta heel idinka baahan tahay kaliya waxaa jirta magaalada jigjiga oo dhalinyaradii iyo dadkii iyo warkoodiiba waxaa haysta oo ay warkoodii looga laaya waxaa weeye layd la-aan baa jirta oo dee dhibaatadii ka dhacday darteed ayaa laydhkii u go-an yahay sidaa daraaddeed ma haystaan khad ku filan oo ay dhalinyaradu magaalada ma dadkiiba ay kula sheergareeyaan dadkoodii banaanka jooga abo ida abo okay haya abo ida marka maadaama internetku ayaga ku yaryahay inaan markaa anagu inta banaanka joogta aan u sheegno dadka banaanka joogay ama wax xumeynaya ama wax wanaajinaya ee mediaha dagaalka ka wada ama dhan wanaagsan hawa wada ama dhan xun hawa wadee inaan idinla sheergarayn xaaladda jirta la idinka baahan inaad samaysaan keliyaan usoo galay waad mahadsantihiin kool dhaweyd warar badan baa horta isdhex ordahay oo magaalada jigjiga waa sidan iyo dagaalaha ka socda iyo maxaan ku raadaaye
haya iga raalli hada wax yar shaantiba waxaa weye gurigii joogto say doonta ii maamulanaysa raalli hada magaalada xaalad xun baa ka dhacday kolley waan ilaahay baan ka rajeynaynaa inuu ka samata bixiyo ummadda soomaaliyeed ee meesha degan inuusan ilaahay dhibaato u keenin saaad u ogeydeen baa madaxweynihii hore ee dowladda deegaanka soomaalida cabdi maxamuud cumar isqaqabsi dheer iyo dabadii wuxuu madaxweynuhu iska dhiibay xilkii oo uu is-asilay isagoo u daneynaya ummadda si walbaba ahaatee madaxweynuhu xilka wuxuu ku wareejiyey madaxweyne ku-xigeenkiisii axmed cabdi ilka case asaga ayaana muxuu ah hadda madaxweynaha deegaankaas kumeel gaara isku dhici dhacay maalintii dhaweyto ciidamadu soo galeen magaalada isku dhicii ka bilowday dadka shacabka ay gadooday waxyaalo badan ba xaggii xaggaba ka dhacday hase ahaatee maanta tii ma taagna oo madaxweynihii haddii la haystay ama dhibaato uu sameynaya cabdi waxa weye hadda uu ka baxay si nabadgelyo nooga soo tegay isagaana iskii iga soo tegay adhisa buu joogaa saan xogta ku hayo maanta magaalada jigjiga marka dadkii saddex bay u qaybsameen nin wanaag sameynayo oo doonahaya ummaddu inay nabadgelyo ku noolaato oo wanaag rabo oo le war isdejiya wax qalalaasi iyo buuq mar waa dhici karaa laakiin waxaan ilaahay baa qadaraya buuqa inaga daaya oo aan nabadgelyo ku noolaano iyo in balaayo sheega oo doonayso inay weligeed wax burburiso unoo dab kicinaysa iyo in jaha wareertay oo shacaba meel ay ku hagata baa garan la magaalada jigjiga maanta way degan tahay shalay madaxweyne axmed ilka case wuu hadlay wuxuu yidhi war xafiisyadii waa shaqo bilaabayaan dukaamadii oo dhan ha la furo magaalada nabadeedii ha lagu soo celiyo ciidanka militariga meesha joogana cidna waxba yeeli maayan cidnana waxba lama dilahayo wixii dhacay ee shil ku dhacay wuu dhacay laakiin wax hadda taagan wax dhacaya ma jirto ciidanka liyu booliska xerooday ku jiraan nabadgelya ku joogaan magaalada dadku baahi yaysan u dhammaan yaysan dhibaato dhicin inagu yaanan isqixinin magaalada hala furo dukaamadeedu madaxweynuhu shalay ku khudbaday iyo stephen aad daawanayseen mooyaan garaadadii iyo magaalada salaadiinta joogay way hadleen waxay yidhaahdeen magaaladu sidaas oo kale u hadleen oo yidhaahdeen ma garanaysaay nabadgelyo iyo aan ku joogno oo magaalada yaan laga qaxin oo yaan la islaynin taasina waan soo dhaweyneynaa laakiin dad baa doonahaya miidiyaha jigjiga khadkuu ka jaran yahay oo laydhkii baan jirin laydhku meeshuu dagaal ka dhaco de waxbaa ku guban kara laydhka waa la gooyey laydhka haddii la gooyey internetna waa tegahayaa war dadka miidiyaha jooga ee halkan jooga ee intay soo sheergareeyaan videoyadii south africa la isku leynayay ama kuwa kenya ka dhacay intay soo sheergareeyaan ku qorahaya waa deegaanka waa dadkii deegaanka oo la leynaya axmaara leynayso walaalayaalow dad baad hurinaysaan ummad baad meesha ku leynaysaana sidaas maaha xaaladu magaaladu way nabad qabtaa magaalada waxaa lagu amray cidna inaysan ka qaxin dhanka wajaala loogama bixi karo dhanka dhagax buuran loogama bixi karo magaalada ammaankeeda la doonaya dadku waa maati ma qaxi karaan inay meeshooda joogaan wax dagaal iyo wax rashbada iyo wax balaayo ka socotana ma jirto baajaajyadu ingeed bay ku shaqeynayaan baajaajyadu way shaqeynayaan maxaan ku rahday dukaamadu way furan yihiin magaaladu way isku socotaa dadka miidiyaha fadhiya ee fadhi kudirarka ee doonaya inay dadka qaxiyaanow war soomaaliya inta 30 sano burbur iyo dagaal ku jirta ood ogtihiin maanta inuu maalin walba qarax ka dhacayo dadkan hadday qaxaan aad qaxisaan xageed geenaysaan ii sheega waa qalad ilaahay soomaali weyn nabad ha kusoo dabaalo wadankii dhanaaba burbursanoo 10 sano maxaa 30 sano dagaalo ku jiro oo qax iyo balaayo la taagan yahay walaale wadanku waa nabad wixii dhacay ee buuq ahaa iyo wixii dhacayna dee inqilaab waa iska dhici karaa ama buuq waa dhici karaa wax xag alle ka yimid u qaata haddana xaaladdu dejiya waxaan idinkula dardaarmaya oon idinka codsanaya oo ummadda deegaanku dadka maatida iyo dadka aan tabar lahayn in meel u qaxi karin in meel u carari karin ay idinka doonayeen keliya nabad bay idinka doonayeen keliya miidiyaha waxbaa laga ololiyaa miidiyaha waxna waa lagu dejiyaa waxna waa lagu ololiyaa afku xabadda waa ka daran yahay dadka u doonahayo inay wax burburiyaan ee ololinhay ee balaayo soo sheergaranaya onag baa nagu soo duushay oromo baa nagu soo duushaydahay warnimayo oromo waa la isgarab deganaa weligeedba waatana waa la isgarab deganaa oromo xaq baaban ku leenahay luuqadeeda soomaaliga dhan baaban u qorrayba oo boorama meesha lagu qorahayay dowladdii soomaaliyeed baa u qortay war dadka aynu saa usoo garab istaagnay walaal la yahay la isgarab taagan yahay u malayn maya waxay shalay ayagu ka cararayeen maanta inay dadku samaynhayaan ee siyaasadunbaa meesha taale iyo jalfis xuna waa lagu wada dhacaye dadka dejiya deegaankan soomaali baa iskale nin walba deegaan buu leeyahay
nin walba wixiisi uu leeyahay nin walba wixiisa uu haystaa iyagu waxooda way haystaan walaalayaalow dadkan nabad bay u baahan yihiin nabadda ha la dejiyo oromo hadday jigjiga joogtay way qaxday waad aragtay inay wajaala ka wada tallowday qabtii dhacay waxay dadkii wax laga boobay xmaar ay u badan yihiin iyo dad aan soo gaarin oo 30 sano iyo 40 sano kula noolaa dargii intay meesha ka carareen Soomaaliyoobay oo in hebel ku garanayo in hebel u garanayso oo magacyo Soomaali la wada baxay oo Soomaaliyoobay oo kula nool baantidoodii waxoodii la dhacay oo hebel iyo hebel la leeyahay oo ku haboonay waxaan in la sameeyo ma aysan haboonay haatan iyo dan waxa ummadda deegaanka doonaa in nabad lagu noolaado dagaal wax faa'iido uu keenayo ma jirto horay waa loo baaba'ay dimuqraadiyadu waan u baahannahay dadku inay isku furmaan oo loo kala xidhxidhin kana siyaasad kala wato iyo kana siyaasad kala wato oo wax lagu farxo waana wax maanta deegaankii ba sameeyay Ethiopia oo dhan ka dhacay oo Addis Ababa oo alif calaamadeedii fanaanaha la wada xidhan yahay oo shir lagu qaban hayaa taas naftigeedu waa guul u soo haytay ummadda oo ay walba burush xarlon baa la ismarinayay oo la isu daboordahay waxaasi uu dhamaaday adigoo on alifa adigoo Soomaali weyna adigoo meesha doonto ka imaatay xornimo ugu noolo oo hadal inta qofku hadii aad hadli karto oo free u hadli karto oo waxa doonto sameyn karto intaas kugu filan walaalle marka waxaan idinka codsanayaa hadii ay jirto walaalnimo hadii ay jirto waxaan ku raadayay dirnax ummadda Soomaaliyeed dad u dirnaxaysan dadka meesha jooga dadka media ka bambuurinay inuu meesha xabad dadkii lala dhacayo walaalayaal been baad sheegaysaan dad wax xabad lala dhacayo ma jirto ummadda deegaanka joogtay baa hadlaysa 24 hours baa telefoonka khadka la isugu jiraa waxaasi wuu dhacay qabiil iska daaya ilaahay baa idinku cadaabi iska daaya qabiil Soomaalina baa idin deeqda kaliya dadkan aad la nooshiin wax la qaybsada wadankiina haysta hadii aad cabdi nabcaayo hadaad cabdi nabcayda ama siyaasad oo aad isku qabateen oo wadanka ka areey war maanta jigjiga u tag adoo nabada orod maxaan ku raadayay xisbiga ku soo biir ama xisbiga ay kala la tag wax isriixay hadda ma jirto waxaan anu aaminsanahay haday siyaasad jirtay la isku hayay way dhamaatay waxaan la hadlayaa haddana aan rabaa inaan si gaar ah ula hadlo nimanka xilka hadda haya ee xisbigii jooga ee xilka dhinka waliba madaxweynaha hadda xilka loo dhiibay Axmedow madaxweyne xilka Allah kugu asturo laakiin hal ogow hadii cabdi dadku ay nabcaayeen cabdi la dagaalamahayeen maanta aad bartii jooga hadaadan shalay cadow lahayn maanta kun cadow baad yeelan doontaa xilka ku keenaya shalay media dadka qaar un baa jira intaada xun wada intaada sanna inay soo saaraan ay meesha keenaan marajeen la ayaguna qabqabta jirta iyo dagaalka iyo buuqa jira ilaahay baan ka rajeynayaa inuu damiyo ninkii siyaasad iyo ay siyaasad isku qabteen madaxweynihii hore meesha ka tagay u yeed adigoon u daneynaynin siyaasad adiga taa ah adigoon u daneynaynin shakhsiga la siyaasadii u danee ummadda deegaanka qof walba oo banaanka deegaanka ka jooga ku darmaayo ururka ONLF in ka badan 30 sano ay banaanka jiraan waxay u dagaalamayeen wada hadal iyo hawshooda ayaga u taala anigu halkaas si faragelmay siyaasi laakiin dadkii deegaanka joogay ee siyaasad u kala tagay hadda u yeed ayadoon qof la xaganaynin ayadoon qof la waxyeynaynin dadka ummadda meel walba joogtay ee deegaanka ee siyaasad u tagtay hadda u yeed ninkoon alfnimo ku maqnaa ha ku maqnaada de taasi wax weyn baa laga sugay weeshiis ha joogo laakiin kuwa nimanka dirnaba joogay dulmidiid siyaasiyiinta kale isla jooga dhamaantood u wada yeer urulaalayaal wixii shalay dhacay wuu dhamaaday maanta inaga soo inaan wax sameysano dheh taasaan anu kugula talin lahaa oo inaan lays caayin iyo inaan wax lasoo farfarin inaan hebel baa saa maalin yiri hebel baa saa wax yiri aan la odhanin war dadkaas isugu wada yeer baan ku oran lahaa ummadda deegaanka waxaan ka codsan lahaa dhammaantiin oo si kaliya laab waliba idinka codsanayaa dhammaan deegaanka bas deegaanka dhan ma wada markii jigjiga xagga looga baxo ilaa maxaan ku raadaa maxay ahayd qabri bayax waa nabad wajaale markaad jigjiga uga baxdo waa nabad waxa kaliya buuqu ka taagan yahay waa jigjiga iyo gudaheeda jigjiga gudaheedana ummad maate ah ummad aan waxba haysanin ummad aan dagaal diyaar u ahayn baa ku nool ninkii cimaqoor haysta ama gaari haysta ama hanti haysta isla waxba maartay waxaan idin oran lahaa dadka dejiya ummadda yaan la barakicinin qof walba nabad buu wax ku yahay nabadaas un baa ina wada deeqda kaliya ciidanka qarankuna mid soo guuray ma ahayn iyo mid meel kale ka yimid waa kii sii joogay walaala weligiiba uu deganaa ciidanka qaranku
nabadgelyada inuu sugo oo dadka kale celiyana waajib baa ka saaran hadday qaban waayeenna way guteen maxaa lagu kala joogi ciidanka qaranku waa shaarka kaliya ee federalismka lagu yahay ee dadka wada ilaaliya hadduu kaasi ummadda kale celin waayo dee muxuu qabanayaa kale waxba qaban maayo marka waxaan idinka codsanayaa oo walaaltinimadii ka codsanayaa inaydan deegaanka gubin warsiiba weliba caasimadda aydan gubin intaasaa la dhisahayay intaasoo sana caasimadda hanti lagu bixiyo oo wax lagu bixiyay wax yar yasa haddaad ku burburisaan waa dhibaato ma South Sudan baan noqonaa maxaan ku dhahdaye ma carabtii burburaysa inaga iska dhigaysa baan noqonaa war caqligiinu ha shaqeeyo xaqu dirar waa la yeelan karaa ururka muxuu ahaa jabadawn alif wax badan bay dagaalamaysay wax badan bay u maqnayd sibuu xaqeeda u dilaacay oo dadkeedii iyo dadkii laga xanibahayay baa raacay tii horena waan cambaaraynaynaa caburuska dadka ku haysay maanta waxaa taagan laakiin onalifna caburus laguma hayo ra-iisul wasaaruhu hadduu caddeeyey inuu onalif wadahadal la yeelanayo masiirka ummadda ay u dagaalamayaan ay kala hadlayaan waa soo dhaweynaynaa anagu fanaaniin baan ahay anigu siyaasi mihi fanaan baan ahay ummadda soomaaliyeed laakiin way taabanaysaa markii dalkaygii iyo deegaankaygii ummaddaydii aan arko ayagoo ama qof dhimanaya ama gubanayso ama dabka dhaco diyaar umay mana rabo ma ayagaan wax ku ahay ma doonay inay magaalada jishiyo gubato ma doonaya inay dadka dhamaatina alalaayo ma doonayo waxaan doonayaa inay noolaadaan ay qurux badnaadaan baan anu doonayaa taasaan aniguna wax ku ahay idinkuna aada wax ku tihiin marka waxaan idinka codsan lahaa midnima ina wada deeqda midnimadu waa waxaan la soo celin karin adigoo onalifa adigoo DDS ah adigoo Soomaali galbeeda adigoo oo dulmidiida wax dulmi raba horta ma jirto magaca dulmidiid ninkii yiraahdo waan ka soo horjeesanayaa horta waa qalad nin dulmi raba ma jirto laakiin war fikirkaas adigoo dulmidiid ana dulmidiid baan laakiin fikirka aad u wato waxaa ka khaldan aan saxno ee kaalay taas waa muhiim war ma garateen wax dulmi raba ma jirto adduunkan dulmi wax u tarhaya ma jirto war ma fahanteen Soomaali baan ahay Soomaalinimada ay deeqda Ethiopia waxaan isku darsanay waa dad baan isku darsanay oo dhaqaalaha naga dhaxeeya ummad baynu nahay ma garat Tigray waa Tigray Oromo waa Orom Soomaali waa Soomaali Benishanguul Axmaaro waa sida kadalika khariirada Ethiopia oo dhan markaad saa u eegto markii la kala qaybiyo gobolada istidiyada markii la kala qaybiyo meel ay Ethiopia ku qoran tahay ma jirto waa qowmiyad isku wada yimid haddii la kala dhaqaaqo walba intiisu la dhaqaaqay laakiin markii la isku wada yimaado dadku ku baa Ethiopian lagu yahay waa magac kaliya ka dhaxeeya qof ay ku gudantahay halka kaga qoran tahay midna ma jirto marka Soomaali baan ahay deegaankayga baan haysaa cidaan wax la qaybsanaya cidaan la noolaanaya ama la nooshaa nabad kula noolow waxaaga hayso talahaan baan idiin soo jeedinayaa dagaalku ma wanaagsana wallaahi inuu soo wanaagsanay hadduu dagaal wanaagsan yahay hadduu dagaal waxtar hayo 30 sano bay Soomaaliya madaxa la gashay walaalayaal haddana anaguna hadda dagaal kicino tanna waan ololaynaa daban qorada geelina Ethiopia kale Soomaaliya ayadoo awal bay suuraysaa waan sii hurun xaq ayadana waan sii hurunayna oo hubkun baa inooga soo dego cidaan doonana hubku iga hor istaaga madaxun bambaf qaraxyadun baa isqabsani geeska Afrika oo dhan olol baa taaban marka bum maxaa markan la faa'iiday yaa faa'iiday marka cid faa'iiday ma jirto Oromona dagaal dan ugu ma jirto Ethiopia kale dagaal dan ugu ma jiro qoraal waxaan ku arkay halkan ay soo qoreen dhalinyarada qaarkood Ethiopia dooni mayno cid doon kule ama kugu qasbisay ma jirto fikirkaaga hadda aad aaminsan xor baa tahay laakiin ilaahay ma fasixin mana kuumana ogola mana xalaalaynin gaal iyo muslim ahaada inaad qof disho kuuman xalaalaynin Soomaabo maya way tir gabadheeduna ay u raacday maya marka waxaan ka codsan lahaa inaydan abo macaan inaan dab la sii hornin inaan deegaanka la gubin in ummadda deegaanka ku nool ee wali siiba magaalada Jigjiga dad dan yar oo maatiga ku nool inaan la burburinin baan kula talinayaa Oromo waxay shalay ka dagaalamaysay Soomaali kuma sameyn karto deegaanka kuma sameyn karto Riyaala Xamid baa habeen sii hore markii ay meesha u qabsaday abi live uu soo galay oo uu dadka la hadlay eray waxaan ka qoray haddii ay Oromo kursiga uun maaragtay ay ka kacsanaysay Tigray hadda anaguna maruma ka kacsan doonaa sheekadii uu ku keenay marka halkan waxba soo dhigi maayo laakiin sheeko fiican bay aad martii marka waxaan kula dardaarmayaa magaalada Jigjiga maanta waa nabad
ciidanka qaranku wuu joogaa waxbuu ilaalinhayaa oo dadku kala celinhayaa ciidanka liyo booliskan xeryahooda ay joogaan dadka magaalada lagama qixi karaa la yidhi hala deganaada dukaamadii waa loo furay wax walba sidoo siba kusoo noqday waxaana ilaahay ka baryahayaa in ay nabadgelyo waarto ay sii socoto oo dadku ay meeshooda ay nin walba ku nagaado oo maxaan ku rahdaay ay sii socoto nabadu xukuumadda hadda jirtana haddii de madaxweynaha cabdi madaxweynihii hore dowlad deegaanka cabdi maxamed cumar hadduu ama dagaal waday ama rashadnimad waday haddii xilki waa ka degay wuxuu ahaaba maanta xun iyo sanba cafis in layska cafiyo ciddii waxwaasana ha cafiyo ciddii dambi ka galay ha cafiyo wuxuu wanaajiyay waan uga mahad celinaynaa ha lays cafiyo madaxweynaha la cafiyo madaxweynihii hore deegaanka la cafiyo haddii de aad caloosha wax ku qabto oo aad maaragtay de dhibaato badan oo aad ka tirsanayso dee maanta waa walaalkaa wixii dhacay qalad waa dhacay laakiin lama soo celin karo intaas ahaan baan aaminsanahay waxaana rajaynayaa ciidanka liyu boolisku inay ogaadaan ummadda deegaanka masiirkooda ummadda deegaanka iyagaa ciidan u ah inaysan dab kusii hurinin inay ilaaliyaan inay xeryahooda ku jiraan inaysan dagaal bilaabin haddii ay ka fursan weydo ay arkaan inay xaalad si kale isku cakiranto dee baakab ha us joogaan ummadda deegaanka ha difaacaan laakiin eega inay isku dayaan in nabadda dejiyaan waxay waxa uu ciidan u yihiin waa ummadda deegaanka tabarta yar kuwaasay ciidan u yihiin madaxweynaha hadda joogana siday madaxweynihii hore ula shaqeynayeen si lamid aha ula shaqeeyaan saasaan anigu ku dardaarmi lahaa magaalada jigjiga waa nabad waad mahadsantihiin wixii hore ay soo gaadhay videoya ay la iisoo dirahayeen sugahayeen oo maanta magaalada jigjigana hadday soo gaadhaan inkastay khad la-aan yihiin waan idiin soo daraya insha allah hadduu alla yidhahdo waan idiin soo gelin doonaa waxaan doonaya kaliya usoo galay waxaa weeye inaan idiin sheego magaalada jigjiga inay nabad u baahan tahay nabadna tahay laakiin media dadka ku jira doonaya inay dab kiciyaan eele madaxweyne cabdi baa la afduubtay haddaa la soo celiyay madaxweynenimadiisi uu kusoo noqday sidaas maa xaaladu waa inaad wax fahantaan clickta iyo websaydyada iyo streamka youtube-ka intaad isku xidhateen bajajka aad doonaysaan in ladiin daawadeed kharash ka sameynaysaan ummaddaanada marna inay koolasha raalli ahaada 100% raalli ahaada magaalada jigjiga nabad baa looga baahan yahay intaasoo milyan oo bir baa ku baxday guryeynteedii iyo waxaynteedii dhisideedii war maanta haddii dabdabada laga geliyo la burburin annagu baa wax iska burburin oramo waxba lagama burburin hal oramo amaba jooga magaalada dagaalka dhacay waaba ka qaxeen ciidanka qarankuna oromo ma noqon karo ciidanka qaranka dhan ee isku jira oromo ma noqon karo jigjiga hadday olosho dir dhabana waa ololi soomaali baa labaduba degan iyo oromo waa la wada degan yahay dir dhabana ha burburinina jigjigana ha burburinina ummadda danyartaana ha burburinina intaasaan idinka codsanayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad mahadsantihiin haddaan gafayna shaydaan baa ka adeegtay raalli ahaada haddii qof codki hadalkayga ka xumaaday meeshii ku jirana walaala raalli ahaada waad mahadsantihiin mar walba waxaan jecelahay deganaanshaha ummadda jigjiga nabad waarta ayaan ilaahay uga rajeynaya waa nabad garaadada iyo ummadda joogta garaadada waxaan intaan ka bixin waxaan la hadlayaa garaadada iyo salaadiinta iyo odayaasha jooga magaalada dirdhaba waxaan idinka codsan lahaa oon mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanayaa shalay wixii dhibaato haddaad dhibaato badan tirsanaysa dhib laydiin geystay maanta madaxweynihii waa isbedelay deegaanka inaad tagtaan baan rajeynayaa xukuumaddii hore dadkii ahaayee meesha xilka hayana waxaad siisaan waqti kuwa yaan lagu bilaabin dagaal iyo bahalkii taga oo dadkiina hadaad wax u qabanaysaan oo bahalkii aad sameynaysaan oo deganaasho ummadda kusoo celiya la safta madaxweynahan cusubna u caddeeya inaydan isaga dagaal kula jirin inaad doonaysaan ummadda masiirkeeda in la helo si wax wanaagsan la helo horumar lagu tallaabsado oon la iscaburin intaa kaliya inaad doonaysaan doorashadu waa xor baad u tihiin waa idiin bannaan tahay shirkad geli waa sidaan anu qabo fikran anu qabo ma aaminsani qof baan anugu siyaasadiisa nabcahaye adiguna nac ama taas ma aaminsani ummadda deegaanku ha iska ilaaliso shaksi nin jeclaysi oo qofka ninkan aad jecel ninkan aniga ila nac iska ilaaliya waa ceeb aad iska ilaaliya mar hore waynagu soo dhaca hadduu xukun hore ahaaye hadduu tblf hadee waxaydba inaga ilaaliya war eega qof walba waa soomaali qof walba deegaankan u dhashay miidiyuhu waa xor qofka afkiisu waa xor ha laga dhigo qofka haddii xor laga dhigo afkiisa uu hadli karo neeftaa kasoo boodaysa wax calooshiis ku jiraa banaanka imanaya dee waxba ma samayn karo kursiga aad joogto haddaad madaxweyne tahay qofkan banaankiisa hadduu ka hadlo uu calolfayoobaanaya mooye ninta kursigaa ku yimaado ka dhaqaaq oran maayo kursigan ku fadhiisanaya taas aamina xildhibaanadu iyo maxaan ku rahdaay baarlamaanka deegaanku
naf isu yeela oo hadla dadka aad mas-uuliin ka tihiin inay xor yihiin u muujiya idinku inaad xortihiin muujiya deegaanka xornimaa loo baahan yahay xornimaa loo baahan yahay laakiin looma baahna in la iscaburiyo keliya uma baahna shalay waxay ahayd anaa aaminsan in siyaasiyiinta kasoo horjeeda mabdaa madaxweynaha inay meesha ka carareen oo laga eriyo ay dhismo tubnaayeen taasina anugu raalli kama ahayn idinkuna raalli kama tihiin wax kale unbaad rabtaan mooyaan maanta free hala iska dhigo free life qof walbo joogo qof walbo deegaanka joogo free ha noqdo ninka shaqaale dowladdiisa ha u shaqeeyo ninka siyaasadiisa ha ku ekaado kii dhakhtarnimadiisa ha ku ekaado kii ciidankiisa ha ku ekaado baasha ha ilaaliyo ninka dukaamada ganacsadiisa ha ku ilaaliyo siyaasadu sidaa ha u kala socoto qof walba wixiisa ha ilaashado laakiin yaysan noqon inaan kursi iyo siyaasad kaliya wada eegno war waa idiin mahad celinayaa waad mahadsantihiin midnimaa wax lagu yahay anigoo cali waxaan caddaynayaa anigoo cali dhaanta waxaan caddaynaya finaan soomaaliyeed haddii onalif shalay la isku eryahay onalif baa taageertahay onalif baa kana war onalif shirka ay qabsanayso haddii anigoo shaksiyan aad uga soo xasuustaan waa idiin imanaya waa idinkala soo qaybgelayaa midnimaa wax lagu yahay midnimada ummadda soomaaliyeed baan doonayaa midnimada deegaankaan doonayaa shirka ka dhacay Stockholm ee onalif ay qabsanayso walaala ilaahay ha idinku gooleeyo shir wanaagsan oo qurux badan baa idiin rajeynayaa dadka onalif shaarkeeda xiranaya dabka hurinayaan ha iska daayaan kuwa deegaanka xiran shaarkooda ee dabka hurinaya ha iska daayaan kuwa Soomaali wax kale aaminsan ee Soomaali galbeed ee ayagana dabka hurinaya ha iska daayaan kuwa Soomaali weyn aaminsan ee dabka deegaanka ku hurinaya ayagana ha iska daayaan war dabka qofka hurinayo wax u faa'iido keenaya ma jirto wax faa'iido u keenaya ma jirto dhibaato mooyaan waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anigu cali baan ahay midnimo iyo nabad baan idinku baaqayaa midnimo iyo nabad waana samayn doonaa tuur iyo xaflado nairobi haddaan tagana xaflad baan ku qaban doonaa midnimo insha allah haddii la yidhaahdo maanta waxaynu u taagan tahay midnimo waxaad ku weyday reebel ku ilmaysa never xaaraan bay ka tahay waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aad baad u mahadsantihiin waa inoo marka dambe insha allah